السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلka aad nagala socotaan waa warbaahintii Chase Media anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal ayaa barnaamijkan iyo qodobada xasaasiga ah idinku hayno idin soo gudbinaya aynu ku bilowna muuqaalkii dheeraa ee maxadka Al Jazeera shalay toole daabacay muuqaalkaas oo dood iyo dagaal fara badan ku dhex maray dhalinyarada Somaliland iyo kuwa Soomaaliya iyo kuwa meelo kale ka socda bal haddaba muuqaalka iyo sida saxda ah uu ku soo baxay waa isku taagi doonaa sidoo kale hanti dhowraha guud ee Somaliland Muuse Yuusuf Cismaan oo isna shaaca ka qaaday mas'uulka qaranka Somaliland ka tirsan ee musuqmaasuq lagu soo qabto ama lagu soo eedeeyo in lagu maxkamadayn doono oo loona gudbin doono bulshada reer Somaliland iyadoo loo isticmaalayo baraha bulshada bal qodobkana waa isku taagi doonaa haddaba intaayna barnaamijka guda gelin iyo arrimaha xasaasiga masaajidkana lagu yiri ummadda u gudbiya idina sheer gareeyo wixii caawinayaana waa u ducaynayna qayb gala ilaahay waxaan ugu ducaynaynaa oo soo caawiyo masaajidka waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay wax sal uu siiyo ilaahay jannadana wuu ugu bishaareeyay qofkii masaajid bineeya ilaahay wuxuu ugu bishaareeyay inuu jannada guri uga dhisayo marka yacniga ma tacaawanu cala albirri weeyaan soo caawiyo walaalayaal masaajidka wixii wax haysto marka masaajidka ku qoran yahay halkaas ku qoran yahay waxa kaaga soo baxaya yacniga masaajidkii badweyn ama jaamicii badweyn baa kaaga soo baxaya markaad lacagta ku dirayso sidaas aad ku ogaanaysaa inay ku dhacayso masaajidka waayahay masaajidka wixii caawimo u geystan ilaahay ha barakeeyo inta kalena sheer gareeya baynu leenahay bal haddaba dhinacan iyo warbaahinaha caalamka aynu soo baydhnay waxaa jiray warbaahino fara badan oo aqoonsiga Somaliland iyo dhaqdhaqaaqiisa ka faalloon jiray waxaa ka mid ahayd New York Times, Sky News, Reuters, France 24 iyo qaar kale oo fara badan oo wargeysyada caalamiga ah oo Telegraph ka mid tahay AP ka mid tahay AFP ka mid tahay dhammaantood way falanqayn jireen haddaba waxa weeye Al Jazeera iyo daabacadan imka muranka badan ka dhashay Al Jazeera waxaan ku naqaanay sideedaba Somaliland in ay dagaal dhinaca baraha bulshada kula jirtay iyadoo muuqaaladii ugu dambeeyay ay soo tabiso ay ka mid ahaayeen Somaliland qabiilada dega qabiil ka mid ah inuu madax ka yahay Al-Shabaab taas oo dhalinyarada reer Somaliland iyo kuwa ka soo horjeeda arrimaha Somaliland lagula kacayo ay si toos ah ugu dacwoodeen waayahay bal haddaba waxa weeye maxaa ku kalifay maanta inay maqaalka intan leeg qorto oo waliba ku falanqayso siyaasadda Soomaaliya iyo aqoonsiga Somaliland labadaba horta sida runtii maqaalkan ay soo qortay waxa ay ka bilowday Donald Trump in uu la joogo waqtigii uu aqoonsan lahaa Somaliland uuna yahay madaxweynihii koowaad ee ka hadla 34 sano ee Somaliland dhisnayd madaxweynihii koowaad ee waddanka Mareykanka xukuma ee ka hadla aqoonsigeeda taasoo saameyn ku yeelan doonta caalamka dhammaantii lagana yaabay in uu talaabadaas danihiisa ka arkay oo aanu cidna uga hayeysan kana laaban doonin kalena heshiin doono Somaliland arrimaha khaaska bal haddaba sida dhinaca kale ay ku qortay waxaa jirta in ay Soomaaliya walaac xoogan ka muujisay taas oo ay tiri dhul fara badan oo gooni isu taag iyo aqoonsi heli doona way jiraan haddii arrimaha Mareykanka ku talaabsado bal haddaba waxa weeye sida ay qoraalka u dhigtay Al Jazeera waxa jirta in ay tiri Mareykanka dib waaweyn kuma hayso dacwadda ka soo baxday Soomaaliya dacwadda dhinaca Soomaaliya ka soo baxday Mareykanka dib sida u weyn kuma hayso waxaana jirta in uu saacadii kastaba aqoonsigaas ku hawlan yahay imka waxaana jirta kulay dawlado badan oo xuluufada ah oo iska kaashanayaan iyadoo imka warqad casuumadeed u taalo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland dhinaca Mareykanka waqtigii uu tagi lahaana hadda ay inagu soo beegantahay waayahay marka maqaalka sida halkanba ka arkaysaan ardi Soomaal baa lagu soo gabagabeeyay jasiiradii ama khariiradii Soomaaliya markii hore la isku oran jiray oo si toos ah u kala go'an oo labadii magac ku yaaliin ayay soo daabacday waxaad markaa halka ka dhadhansanaysaa warbaahinta leeyahay Al Jazeera oo warbaahinaha warka siisay waxa laga yaabaa xog rasmi ah inay ka hayso waqtigan aqoonsiga Somaliland
iyo halka uu marayo ayna tahay iminka inay muuqato xilligii la aqoonsan lahaa. haddaba waxaa jirta dhallinyarada reer Soomaaliya ama dadka reer Soomaaliya aqoon-yahaniinta qaar ka midii inay iskaba indha tiraan oo iyagoo maqaalka arkaya ay yidhaahaan ma aha Al Jazeera ee waxa soo daabacay qof hebelaya. taasina ma aha wax la odhan karo wadada ay raacayso laga dugi karo. sidoo kale waxaa jirta in siyaabo kala duwan ay uga doodeen oo qaar ka mid ah aanay ku habboonayn qaabkii qof aqoon leh u hadli lahaa. taasna waxaan kaga gudbinaa qof dantiisa ku socda wax kasta waa u dulqaataa. waayahay haddaba dhinacan iyo danjirihii hore ee Soomaaliya u fadhiyi jiray Mareykanka muxuu isaga laftigiisu soo tabiyay halkaas warka ka aragtaan. waxaa jirta in uu si toos ah u shaaciyay oo yiri aqoonsiga Somaliland waxa laga yaabaa in uu Trump si toos ah uga hawl galo sababtu tahay waxa weeye madaxweyne maanta wixii uu isagu hindiso ku dhaqaaqi kara lagana filayo. marka ninkan danjiraha ee hore ugu fadhiyay Soomaaliya Mareykanka waxa uu isagu ahaa xisbiga kale ee dimuqraadiga leeyahay. waxaanu si toos ah runta uga sheegay arrinkan waxaanu yiri waa wax hadda la filayo oo Trumpna ku talaabsan karo. halka haddii aynu kaga nimaadno dhinacan iyo Somaliland iyo aqoonsiga waxaa jirta hanti dhowraha guud ee Somaliland Muuse Yuusuf Cismaan inuu si toos ah shaaca uga qaaday mas'uulka qaranka u shaqeeya Somaliland ee musuqmaasuq lagu soo qabto in maxkamadda hor keeni doono weliba baraha bulshada si toos ah looga shaacin doono. maxay ka dhigan markaa arrinkaas? waxa weeye kalsoonidii shacabka oo si toos ah loo kasbanayo. hadda ka hor waxaa jirtay muuqaallo aan duubay oo ay ku jirtay weli miyaa aragteen nin mas'uul ah oo musuqmaasuq lagu soo qabtay oo maxkamad lagu taagay oo ama wax lagu helay ama lagu waayay. waxaa laga yaabaa in arrinkan iyo ifafaalihiisu uu markii horeba ahaa mid si toos ah looga sii fakiray oo ajandaha xisbiga wadani ku jirtay waqtigii aanu qabsan madaxtooyada. waxa weeye haddaba Somaliland shacabkeedu maanta kalsooni 90% ayuu haystaa maadaama tallaabooyinka iminka ay qaadayso iyo kuwa harsaniba ay yihiin rajada ugu wanaagsan ee maanta shacabku qabo. tanna waxaan u arkaa haddii meesha isla xisaabtan yimaado nin kasta oo mas'uul ah inaanu ku dhiiranaan doonin arrimaha hore inoo soo maray. sababtu tahay haddii xisaabi taalo nin kasta oo qaranka u shaqeeya isaga xisaabtamaya. waxaana muhiima sida horeba ugu xusnayd xeerarka iyo dastuurka in ninka mas'uulka marka la doorto lala xisaabtamo hantida uu leeyahay iyo ta loo dhiibaya lagala xisaabtamo dantiisa iyo shaqadiisana lagu ilaaliyo. taasi waxay ka dhigan tahay kalsoonidii shacabka oo maanta mas'uuliyiintii aamintay. sidoo kale waxaa jirta dhinacan iyo Somaliland propagandooyin badan oo haddeer la soo dhexgelinayo. waxaa jira weerarro fara badan oo dhinac walba ka imanaya. waxaa u dambeysay iyadoo oo la leeyahay gudoomiye guddida abaaraha Soomaaliya ayaa waxay soo gaarsiisay $700,000 waxaana ula jeeday caawimada abaaraha. bal hadda waxa weeye abaarta laftigeedu laba waji bay yeelanaysaa ama hay'ad khayriye ba Soomaaliya inoo soo dhex marisay oo qaybteedii aan ka soo qaadanay waa noqon kartaa mise Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud bayna caawiyay. anigu waxaan u filayaa horta xukuumadda Soomaaliya iyadii baa dawarsi ku nooloodee caalamka u doonata wixii ay qoodan lahayd. nin dawarsadana qof kale ma caawin karo. waxaa jirtay hadda in aanay wax isku filaan qarana oo aanay mushaharaadka iska bixin karin oo laga bixiyo oo caalamka hay'adaha khayriga ah iyo kuwa ka socda UN-ta tuugsanaya. haddaba guddi abaareed wax ma soo gaarsiin karaa nin isagiiba caalamka wax u doonanaya dowladdan oo shaxaad ku noola? anigu waa maya bay la tahay.
taasina waxay noqotay cambaarayn dhinaca Somaliland haddiiba aanay wadooyin kale aan sheegayo inoo soo marin dhammaantiin waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan halkaasaan kusoo gabagabeynaynaa Al Jazeera waxaan u leenahay halkaa ka siibo wada salaam ya dhammaantiin